waxa uu cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogay Quraysh. Waxa uuna ahaa boqor ka mid ah boqoradii Yamaama iyo mid ka mid ah odayaashii ugu sharafta badnaa reer Bani Xaniifa, amarkiisana aan la diidi jirin. Magaciisa waa Thamaama binu Athaal. Sanadkii 6aad ee Hijriyada, Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, isaga oo ku raad jooga fidinta diinta Islaamka, ayuu warqad u diray taliyayaashii xukumayay jasiiradda Carabta iyo nawaaxigeeda. Waxay warqadii soo wareegtaba waxay soo gashay gacantii Thamaama. Markii uu akhriyay warqadii, waa uu cadhooday. Waxa uuna go'aansaday inuu soo dilo nabigeennii sharafta badnaa. Isaga oo ku raad jooga qorshihiisa ayaa waxa uu la kulmay koox ka mid ah asxaabtii Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Halkaas ayuuna birta ku mariyay. Thamaama binu Athaal waa uu ka soo tagay magaaladii uu joogay, waxa uuna soo aaday Makka si uu ugu soo cumraysto. Waqtiba kama soo wareegan jeer ay koox muslimiin ah oo gaaf wareegaya Madiina ay gacanta ku dhigeen iyagoo aan garanayn qofka uu yahay, waxayna ku xidheen tiir ka mid ah tiirarka masaajidkii uu joogay Nabiga. Waxay la sugeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam si uu uga taliyo masiirkiisa. Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, markii uu u soo dhawaaday Thamaama, waxa uu ku dhiirigeliyay inuu islaamo, balse diidmooyin badan oo ka yimid Thamaama. Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu go'aansaday inuu iska fasaxo. Thamaama binu Athaal waa uu iska tagay, waxa uuna soo kaxaystay awrkiisa ilaa jeer uu soo gaaray meel u dhow Baqiic, halkaas oo uu ka waraabiyay awrkiisa, isagana uu ku maydhay. Dabeetana waxa uu ku soo noqday masaajidkii uu joogay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxa uuna qirtay inuu islaamay, waxa uuna ballan qaaday in isaga iyo inta la jirtaba ay u adeegayaan Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Maadaama uu ahaa nin sharaf ku dhex leh tolkiisa, waxa uu soo islaamiyay dad badan, waxa uuna galay duulaano badan intii uu noolaa. Thamaama binu Athaal waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee gala Makka isaga oo talbiyeysanaya, yacni isaga oo ku dhawaaqaya labbayk Allahumma labbayk. Ugu dambeyn, Thamaama binu Athaal waxaa jeclaaday Allah subxaanahu wa tacaala, waa uuna oofsaday, halkaas ayuuna ku geeriyooday.